kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada nabadjire podcast barnaamij ay BDRC bilowday sanadkan 2025 ujeedada podcastan waa in la falaqeeyo arrimaha khuseeyaha bulshada Soomaaliyeed sida nabadda, amniga, maamul wanaagga, horumarka, hidaha iyo dhaqanka. waxaan isku xireynaa xogta, cilmi baarista iyo mowduucyada muhiimka ah ee taabanaya bulshada. waxaan martigelinaynaa khuburo, hogaamiyayaal, aqoon-yahano, suxufiyiin iyo dadka saameynta leh si aan gacan uga geysano fahamka xaaladaha jira iyo wanaajinta bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. wax ay qiimaha way fiiriyeen dukaankaaga la kalkood garanaya income-kaaga la kalkood garanaya mushaharka haddaa qaadatid baa la kalkood garanaya wax kaa go'i karaa laga qaadaya wax ku harayaan dadka maadaama ay dadku yihiin saci ay maalayeen way dhaqaalaystaan oo waxay sameeyaan waxay ka baadaan wax qofkaas ka noolaan karo kuwa kani waxay kaa qaadanayaan waxa haystoo dhan bahal mar laga qaadaya adaa yaqaan meesha ka keenis hadalna kuma soo celin kartid ma gorgortami kartid waxa lagu oranayaa intaas keen afkooda waxa ku soo dhaca haddaan siina madaxaaga go'an marka waa xagga baadda dee waasaan kuu sheegay oo naaru waa kala kuleel badan yihiin aad bay boqolkiiba 600 bay ka dhib badan yihiin xagga baadda ay ka qaadaan dadkan halkan jooga marka dhaqaalaha localka ka soo gala saasay dadka uga baadaan sida waxyaalaha keenay inay isku dhacaan iyaga iyo shabaab xataa bay ka mid ahayd maadaama dee sacooda u hirmaanaa cid ay timi ibaha jaraysa oo waddankiiba ka cayrinaysa waxay damceen inay iska qabtaan oo dhahaan anagu si tartiibaan u maali jirnay nimankan aan iska qabanno laakiin uma shaqayn. hadday waxaad mar taabatay meelaha ay dhaqaalu ka soo galo bal noo dul istaag nimanka hadda daacisha meelaha dhaqaalaha gudaha iyo dibadda uu ka soo galo. sidaan ogaa xilli aan dhaweyn oo aan dee markaa aad ugu lug lahaa dhaqaale dibadda uga iman jiray baa jiray laakiin waayadatan horta aad ugama warhayo inta uu gaaray laakiin dhaqaalaha dibadda uga iman jiray khaasatan carabaha buu soo mari jiray isaga oo dee maanta meesha caraba waxay ahayd meesha inuu ka yimaado raashinka iyo qalabka iyo agabka inuu ka yimaado marka maadaama lacag la soo diri karin agab laga soo gaday xaggaas baa la soo diri jiro dalka la keeni jiro la caddeyn jiray halka laundrinka baa loo keeni jiray taas waxay ahayd factor ka mid a dhaqaalaha soo gala mid ka mid ah halkan money launderinga ama xamar ha la soo mariyo ama hargeysa ha la soo mariyo ama boosaba ha timaado iyadoo raashina saasaa loo soo laundering garan jiray taas mid bay ahayd waxaa ka dambeysay oo iyadu micno badan samaysay inay mining sameeyaan dhulka dahabka gurtaan dahabkaasu xilligii shabaabka ay ka qabsadeen dhulkay haysteen mar buu yaraaday oo aad u yaraaday laakiin intay la wareegeen dhulkii dib ula wareegeen sheekadooda dib bay u bilaabeen lacag aan madaxaaga geli karin bay ka sameeyeen dahabka oo la dhoofiyo oo doonyo intii la saaro xeebta laga saaro iyadoo jawaan ah la iibgeeyo dahabkii haa marka qalabkiina way haystaan xataa wararka waxaan ku helaynaa in mararka qaarkood dad caloosho shaqsiyaala oo qalab kaga bedesha oo ay ku tarawata inay yimaadaan oo dahab kala qaataan alaabna wuxuuna u dejiyaan dee marka ay u baahnaayeen warkaas waa maqal. ma jiraan ganacsiyo kale oo Soomaalida gudaheeda ah oo ay marmarka qaarkood ama iyagu abuuraan ama isku dhex qariyaan ama u shaqeeyaan? waa suurtagal laakiin aan hadartan cidaan hadda farta ku fiiqi karo ma jirto aan hadda garanayo laakiin waa wax dhici kara wey. waayadan dambe waxaa la qoraa in Soomaaliya lacag laga diro oo daacishta adduunka kale loo diro taas iyada ka hor waa la diraa halkaana laga diraa waxaa loo diraa khaasatan waxaa loo diraa Afrika iyo Yemen labadaba lacag bay u diraan marka Yemen dee cidina waa u joogtaa
waana meesha keliya wax ka soo iibsadaan marka lacagta yemanka aadaysa inta badan waxbay kusoo bedeshaan laakiin daacishta afrikada joogta halkan baa laga xukumaa xafiis liyaha alkarar oo halkan ku yaala baa laga xukumaa alkarano maxaa ka shaqaysaa marka alkarar waa xafiiska daacishta afrika laga xukumo baa liyaha xaggan buna ku olaa waxaan bal noo sheegtaa inagu waxaynu naqaanaa ninkan soomaaliga ah ee reer puntland ee la yiraahdo cabdiqaadir muumin laakiin inuu puntland baynu ku naqaan laakiin wararka iyo riboodada iyo qoraaladu siyaabo kala duwan bay u tafsiiraan doorkiisa mar waxay yiraahdaan daacish africa weeye mar waxay dhahaan daacish global oo buuba haystaa mar inuu farshinka hore haysanay inuu puntland haysto horta ka waran nimanka leadershipkooda iyo ninka odagaa gaar ahaan wuxuu ugu tooraya ninka odagaa marba mar dee waagu arrinku ugu horreysay ay bilowga ahaayeen dee daacishta soomaaliya u ahaa kadib waxaa laga dhigay madaxa daacishta afrika xafiiska alkarar baa loo dhiibay inta hadda 2 sano ah waxaa laga dhigay madaxa daacishta caalamka maadaama ay soomaaliya noqotay meesha keliya oo ay presence noocan oo kala ku leedahay daacish ay ku soo qulqulayaan wixii ka haray daacish ee meelaha ku qarsoonaa ay ku soo qulqulayaan saas baa looga dhigay isaga inuu halkan noqdo si loogu soo hirto cabdishaaq waxaan rabnaa bal inaan aan wax ka ogaano nimankan hadda joogistooda halkan soomaaliya gaar ahaan puntland iyadoo la ogaa in adduunka laga tirtiray oo lala diriray innaga fariinta inoo leedahay iyo culayska inoo leedahay iyo waa isla garanaa bal adduunka maxay uu macno uga dhigan tahay in nimankii ay soo baxaan iyaga oo tiro leh iyaga oo tabar leh iyaga oo dagaalami kara iyaga oo haysta dhul maaragtay aad u adag in lagula diriro arrintaasi fakarka iyo dareenka adduunka ee ku aadan ISIS maxay ka bedeshay maxaase laga fili karaa inay ka bedeshay haddii la ogaaday daacish inay halkaas sabada dhigatay xaruntoodina ka dhigatay halkan caalamku runtii aad buu ugu soo jeestay wax kale maaha daacish waa la garanayaa ujeedadooda la yaqaanaa daacish la mid maaha argixisada shabaab ee halkan inoo joogta waa niman hankoodu uu ka weyn yahay hankooda koowaad waa inay puntland qabsadaan kan labaad waa inay soomaaliya qabsadaan kan kuxig waa in afrika qabsadaan kan kuxig waa inay caalamka qabsadaan waa niman sidaa u dheereynaya halkanna waa meesha ay ukutooda ku korsan lahaayeen marka dee intaan ukumahaasu dilaacin oo aysan saameyntoodu caalamka kale usii gudbin baa hadda caalamku usoo wada tafaxaytay in meeshooda tan wax looga qabto lagu baabiyo saasaa caalamku inuu kusoo darayn soomaaliya la jecel yahay maahan alaabta halkan ukumaha halkan kacayaa la diidaya inay xaaj garoobaan oo ay caalamka ku yaacaan baa la diidaya yaa hadda puntland kala shaqeynaya oo partners ah oo caalami ah oo dagaalkan kala shaqeynaya wallaahi way dadka danaynaya inay puntland wax kala qayb qaataan way badan yihiin dowladaha reer galbeedku ha u badnaadeene waxaa kaloo jira dee dowlado kaleeto oo afrikaana iyaguna oo ama deris ha noqdaan ama si kale dadkoodu ha ugu dhex jire iyaga laftigoodu ay soo jiidatay arrinkaanu oo doonaya dee waxay daadku intuusan ku soo gaarin baa layska moosaa way ogyihiin meesha loo socdaa puntland ama soomaaliya ahayn marka reer galbeedku dee waad aragtaa duqaymaha iyo waxay wadaan iyo inkastoo aan u jeedin wax gargaar toos oo ciidamadeeni lasoo gaarsiiyey haddana somehow inay danaynayaan inay wax u geystaan oo waxyeelo ku sameeyaan ama madaxda ka laayaan ama duqeeyaan waxay u jirtaa in caalamku inoo yimaado afrikada kaleeto wadamadooda inay soo booqdaan inay ugu yaraan ka war hayaan ogyihiin waxa kanu inuu waxyaga kusoo socdo yahay marka waa la dareenayaa laakiin sidii inagu aan rabnay in lanoo kala shaqeeyo hawshata lanoo kala qayb qaato iima muuqato waayo ciidankeenii cid hadda garab istaagan oo wadamo kale ah oo taageeraya ma arko arrinta la xidhiidha afrikaan badan iyo wadamo badan oo waxaa jira ama deris ahaadaan ama carab ha ahaadaan oo dadkoodii lagu arkay oo qaybtooda xataa aan aad saas looga warqabin horta arrintaasi fariin noocee bay diraysaa kow midda labaad oo muhiimka ah oo aan jeclahay inaan toosh ku ifin waxa weeye
waddamadaasi ma laga yaabaa inay ka mid noqdaan awoodaha hadhow lagu xisaabtami karo ee la diriraya nimankan mustaqbalka dadkaasi dowladahaas dowlado maaragtay alerted ah oo fariin arrintaasi u dirayso oo aynu fili karno inay ku soo biiraan la dagaalanka nimankan inay noqdaan ma laga yaabaa dowlado badan oo waxaa jira afrikaan ah oo aad numberkooda ugu badan xataa aan waddamo islaama aan ahayn ama islaamka joogaaba uu yaryahay sidaan hore kugu sheegay horta waddamo badan oo afrikaan oo halkan cidi ka timi baa jiro ina soo booqday oo waxay u yimaadeen waxa weye inay ogaadaan waxaa laga sheegaya in dadkoodii meesha ku jiro iyo inay ogaadaan kuwa yihiin dadka ku jira si ay gudahooda wax uga qabtaan oo u raadsadaan identitykooda iyo raaraac u sameeyaan laakiin ma malaynayo waddan afrikaana dhaqaalana ina siin mayo ina kusoo biirin mayo ciidanna inoo soo diri mayo strategicna duqayn mayaan meelaha ay joogaan madaxooda iyo wax la midkaa ina ka duqayn mayaan laakiin waxay inoo ka yimaadeen inaga xog ina ka helaan oo si gudahooda ay dhibaatooyinka kasoo foolaan waxa kale markii hore guryahay ka soo baxeen iyo raadka xagga ay ku yeelan karaan bay doonayaan inay ogaadaane malayn mayo inay inaga waxna ka caawinayaan xilligaan filaymayo laakiin iyaga dareen bay u tahay soo maaha in ay ogaadaan muwaadiniin u dhashay oo weliba nambar badan ah oo arrintaas ku jira dareen bay u tahay micno badan bay u samaynaysaa hadeertan haddii la yidhaahdo magaalada dalka Morocco baa waxaa lagu qabtay Cabdinaasir inta ordan dhehna warrick Cabdinaasir meesha muxuu ka doonay inta u tagnaa Cabdinaasir yaa garow ku jooga waa sheeko noocaas oo kale ma aha iyagu inay inaga ina dareynayaan iyaga baraarugay oo wax leeyihiin haddiiba dad idinka soo dad idinka tagay halka aadeen imisa weli joogta gudihiina ujeedada ay u socdaan waa sidaa arrin hadday markaan ka hadlaynay nimankan sophisticationkooda ama awoodooda waxaa jirta waa dhaweyd ciidanka puntland inuu soo bandhigay gantaalo oo laleeyahay waa nimankani waxyar baa uga dhimanaa inay gantaalaha isaga goosha badaha iyo waddamada inay sameeyaan xogtaas maxaad ka ogtahay xogtaas 2006 baan hayay anigu oo aanu haynay kombiyuutarro iyaga aanu ka qabanay baanu ka aragnay kilibyo ay duubeen iyaga oo intay sameeyeen tijaabinaya oo qaarna agtooda ku dhacayaan qaar hawadaa gelayaan qaar way sameeyeen gantaalkii laakiin waxaa ka dhinayd precisionkii meeshuu ku dhacaya inay xukumaan intaas kaliya ka maqan waana 2016 baanu aragnay anagu taas waan haynay documentary ay sameeyeen hadda waxaan ognahay marka inay khubra keensadeen waliba xuutiga haddan magacaabo baa rag u soo diray haddana la rakibaya la waday in kuwa precision la sameeyo dowladdu arrinkaas waxyaalaha soo dadejiyay ka mid ah inay gacanta ku dhigto waxaan rabaa agaasi bal inaad markan aynu fiirino dadka deegaanada joogay ay nimankani ka shaqaynayeen ama ka howlgelayeen si ula dhaqmeeyeen weliba si ula dhaqmeeyeen xilliyada hadda dagaal ku socdo ama ay ogaayeen in dagaal lagu soo qaadayo waxaan haynaa labo narrative oo kala duwan midi wuxuu leeyahay nimankani marka horeba ma ogolayn dadku inay kasoo agdhowaadaan meelaha qaybtood farshin kalena wuxuu sheegayaa markay ogaadeen in cid iyo dhulba laga weeray in dadka qaybtood ay hostage u qabsadeen marka bal arrintaasi noo dul istaag waagi hore runtii kamay carari jirin dadka waa ku dhex noolaan iyaga u adeegsan jireen iyagoo dee ku khasban mid ay lacag siiyaan mid ay u dhaartaan iyo mid ay sii doonaan marka laakiin inta dagaalku dhacay maadaama nimanku ajaanib u badnaayeen dadkii way ka carareen wixii Soomaaliya xataa kuwii iyaga asxaabta la ahaa daacishta la ahaa bay kala soocmeen therefore waxa dhacday in dhowr jeer dad xoolo ka dhumeen oo baahidoona intay kasoo duldhaceen intay qabteen gowraceen marka dagaalkan hadduu dhacay iyaga iyo reerkii buuraha deganaa waa kala dhinteen waxna isuguma harsana intaas aan ognahay waxaan rabaa bal inaad xog naga siiso nimankan ajnabiga ah ee yimaada marinkoodu waa xagee imise qaab bay ku yimaadaan imise nooc bay ku yimaadaan waxay ku yimaadaan laba channel waa dadkaad inta badan caanka ah oo daacish la yaqaanay caalamka ah iyagu badday soo maraan dooyina soo qaataan iyagoo
riski garaynaya naftooda inay badda maraan intay meel immigrationna iyo lagu arki lahaa oo la qaban lahaa iyo badda soo maraan line kalena waxa weeye in ay iska soo dhigaan fiisa intay soo qaataan ama hargeysa ha ka soo degeen ama meel kale ha ka soo degeen inay iska dhigaan dad ama caafimaad u socda ama macallin ah oo waxbarasho u socda inay fiisa noocaas soo qaataan meel aan puntland ahayn ka soo degaan kadibna safarkooda ka soo wataan halkaa weliba hargeysa aad bay ugu badnaayeen marka labadaa leen un bay ku socdaan dadka imanaya ajaanibta inay isku dhex qariyaan qaxootiga ama qaxooti carababa inala jooga ama qaxooti kale oo afrikaan ah amaba qaybtood haddaan xataa qaxooti ahaan weli aan loo qaabilin dee dad immigrants ah oo soo galooti ah inay dadkaas isku dhex qariyaan warkaas waa xoog buu leeyahay sidee bay isugu dhex qariyaan haddaad tafaasiil naga siiso maxayse cawaaqib xumo ama culays ah oo dadka intooda genuineka ah ee masaakiinta ah ee joogay noolaa nolol ka sameynayay halkan maxay culayso ku soo celin kartaa in laga helo elements radicalized ah oo la dhex galay oo nimankaas ama la shaqaynaya ama caadifad iyo tacaduf ah wallaahi argixisadu waxay caan ku tahay inay bulshada qeybaheeda kala duwan qeyb kasta inay iska dhigaan way dhacday in la arkay dad tuugsada iska dhigaya ama alaab kuwa wareejiya iska dhigaya taasi waxay dhibaato u keensanaysaa dadkii iyagu qaxootiga dhabta ahaa nasiib wanaag horta xilligii yamantu ay ina ku soo jabaysay xilligaas ma badnayn dadka ina soo gelaya noocaas laakiin xilligii dambe oo dadka siiriyaanka iyo soconayeen bay isku soo dhex dareen taasu waxay sababtay in wixii carab u eg oo aan si qaldan u soconayaba la qabto haddaba way dhacday magaalooyinka caadiga hataan joogno in nin lugeynaya la arkay oo dadka soo qabteen lasoo xiraa saldhigga la keenay ilaa la ogaado oo layaa war ninkan la soo baxo dokumentigiisa taasna waxay tusaysaa dadka feegjignaanta ay u leeyihiin runtii dhib bay ku tahay dadkii masaakiinta ahaa oo ama Syria ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen oo dadka ku dhex noolaa dhib bay ku noqonaysaa waayo lama kala garan karayo uma jiro qof shahaado haysta ama dokumenti u haysta inuu dhar wareejiyo ama tuugsado ama qofkii doona iska dhigi karaya marka dadkaasna dhibaatay ku tahay innagana inaanu kala garanno waa dhib bayna ku tahay security dhib bay ku noqonaysaa taasna waxay kalifaysaa in la isku wada qaado la yidhaahdo habal la wada mamnuucaba waynu soo ururinaa waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo si qiimeyntaadu sidee tahay sida dadka Puntland arrintan uga jawaabeen isugu duumneen dowladda u dhinac istaageen ma filaysay see u qiimaysa adiga runtii Puntland mid ay caan ku tahay baa jirta waa laba arrimood bay caan ku tahay mid waxa weeye inay yihiin dad markii arrimo adag yimaadaan isku duubma aan kala tafaraaruqin waa mid caanay ku tahay tan labaad waxa weeye Puntland tolerance ama dulqaad uma laha argagixiso intay doonto hal ekaatee waan ogeyn berigii garmaal oo kaleeto yacni heer miyigii baa meel laga maran waayay ciidankii iyo wax la kala garan waayay dadkii waana qiirada dadka haysa marka waxay ka mid tahay xilliyada ay dadka Puntland midnimadooda dhabta ah la arko xilliyada arrimahan oo kale dhacaan marka hadday sheekadeeda waxa ku jirtay waxaad weydiisay maxay uga yar yihiin Soomaalidu dadka kaleeto maxay uga yar yihiin waxay uga yar yihiin waa sababta sheekada hadda aan ku sheegayo dadka Puntland argagixiso ma noqon karaan ilaa qof dambiila oo intii noloshiisa ku adkaatay desperate oo iyada naf ka bida maahane dadka Puntland ma aha dad radical noqda mana u dulqaatan mana qarsan karaan taas waa ay uga soocan yihiin oo ay u jiraan meelo buura ah oo aysan iyaga kaliya ku nool yihiin oo ay dadka aysan mixed uga ahayn oo taas waa kaga duwanahay koonfurta waxaa jirta erey meelaha marka la isweydiiyo haddaad aragtid baa layidhi reer koonfura oo tiraahdo waxaad oran kartaa imisaan ahayn shabaab imisaan ahayn minority wax noqonayaan intaan ahayn halkana waxaa la yidhahdaa imisaa ah saas waxaa kala duwan tahay moogta marka dadkani ma aha dad argagixisada dulqaad u leh su-aalahan u dambeeyaan marinahay bal aan ku weydiiyo nimankan sida ay dadka u shaqaalaysiistaan ama ay ku helaan dadka u diriraya dadka farsamo yaqaanka ah
siyaabo kala duwan bay horta ku helaan markii ugu horreysay horta dadkii ay heleen oo ay 7 qof ahaayeen waxay u badnaayeen dadkaasi dad murderers oo intay dad laayeen bulshada intay ka eedoobeen meel ku noolaadaan waayay iyagoo baxsaday dadkaas way badalacsiiyeen madaxdooda ka mid yihiin qaarkood kuwa nool iyo kuwa dhintayba waa dad iyagu meel ay ku noolaadaan waayay oo murderers oo u galay kow ma tahay tan kale waxa weeye dadka radicalka oo waxaan madax mareen oo ashaabiyada kale ka yimi oo dee khaladka aaminsan ama maskaxda laga dhaqay oo dee sida khaldan diinta u fahmay laba ma tahay nimankan waxa kaloo xigta oo ay sameeyeen caalamka dhan waxay gaarsiinay inay qofka u yimaadaan lacag mushahara oo waaliya siinayaan taasoo been ahayd waxay u sheekeeyeen dadka in 10,000 mushaharka la qaato dad badan oo xataa qaar afrikada ka yimi qaar soomaali ahaa qaar carabaha ka yimi oo markay buurihii yimaadeen wixii waayey qaar badan iyagoo cararaya qaar iyagaa dilay qaar way isdhiibeen qaar intay carareen oo buurahaas caq ugu dhinteen marka waxa weeye rajagelin been ah iyo dadkaas desperate-ka oo criminalska ahaa u galay dad radical ah oo dee waali diineed qabahoo waashay iyo dad khasab ugu shaqeeya oo dadka waxaa ka mid ah dadkii meesha deganaa oo ay ugu yimaadeen oo ay haystaan oo aan hadda waxa jira dad xataa boosaaso oo kaleeto garow oo kaleeto xarun qof jooga magaaladiisii oo telefoon looga soo dhaartay oo hadduu meel meherada joogay hadduu isbitaal jooga la yidhi keen daawada khasab aldi kale waa lagu dilaya oo walaad buhaynayo u geynaya soo u shaqayn mayo baqdin buu ku shaqaynaya kan lacagta siinaya oo loo soo hadlayo soo khasab soo baqdin ku bixin mayo dad saasoo kale waxaa jira baqdin uga adeega haddaadan waxaa keenin gaariga haddaadan soo qaadin adiga gaarigaagaba waa la gubaya waa khasab inuu soo qaado marka dad khasab ugu shaqeeya oo hanjabaad ah ama dadkoodii la haysto ama xaafadiisa la haysto ama isaga iyo meeshii uu householdigiisii dhulkiisii la joogo oo meel u cararo aan haysan oo khasab ugu adeegaya baa iyaguna jira marka intaasoo nooc weeye agasin waa soo gabagabaynaa waxaan rabaa talooyinkaaga inaad marka aad ku soo gabagabayso oo talo xogaalnimo aad bixiso talada ku aadan dowladda talada ku aadan shacabka talada ku aadan international partnerska talada ku aadan sugidda amniga gudaha iyo kan xuduudaha marka aan ku siiyo talada ku soo dhawo bismillah horta dowladda puntland dee amniga gudaha iyo dibaddaba waa shaqadeeda weeye marka hal talaan siinaya waxa weeye argixisada aan la dirirayno waa dad tiro iyo tabarba yar laakiin waxaa saacidaya environmentiga ay ku jiraan oo ah meelaan dad dee bahalo godood ku jira in dadka la contain gareeyo cunaqabatayn bad iyo beriba looga sameeyo iyagoo aan lala diririn bay iska dhimanayaan ama dadka is soo dhiibayaan gaajo iyo biyo la'aan iyo information la'aan iyo wax walba in bad iyo beriba laga xiro iyagoo aan lala diririn ba is soo dhiibayaan sida qaarkood ba ay hore u yeeleen yaan laga noqon dagaalkan iyadoo aan ninka ugu dambeeya la ogaan meesha ku dhintay intaasaa waxa lagu darayaa in la adkeeyo meelaha ay wax uga soo geli karaan agaba meel kasta in laga cufayo oo dadkaas laga xiro agabka ay helayaan tan kale waxa weeye dadka in dee waa wacyigeshayin dadkeennu hadda wax wacyigelin uma baahno intaas warku daqiiqad wix dhacaya wix laga yeelaya maalin bay isgaarsiiyaan dadka reer puntland marka feejignaanta ay wadaan inay laba jibaaraan ciidanka u dagaalamayana in la saacido ciidanka ogolaaday buurtaas intuu tago inuu ku dhinto naftiisii geeyey haddii ninka maalkiisa halkan la fadhiya muxuu samaynaya adigu marka naftaada haddaadan gengey maalkaaga marka in ciidanka la saacido oo laga saacido agabkii ay ku dagaalami lahayn cuntadii biyihii gaadiidkii daawadii iyo moralkii intaba marka inaanu ciidankeena garab istaagno haddaynu ciidankeena garab istaagno dowladduna haddee saasay garab ku heshayba waay agaasima aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa xog ogaalnimadaada iyo falanqaynta iyo xogta dheeriga ah waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid xiise iyo waxtar labadaba yeelata aad iyo aadna waad u mahadsantahay